السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ولا فرحان وفشيال. soo dhawaada saaka waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ku saabsan Daahir Cali Sow. Daahir Cali Sow waxa waaye wuxuu diiday shirkadda ummadda Soomaaliyeed oo wada taqaanaan oo la yiraahdo Hormuud Telecom. shaqsi ahaan uma xigo qabiilka shirkaddaas macnaha oo hadda maamulkeeda gacanta ku haya anigoon ka hadlaynin aan waxaan rabaa inaan uga hadlo si oo islaamnimo maadaama ay maalin Soomaaliyeed ay tahay. Daahir Cali Sow isaga dowladda Soomaaliya maahan, nabad sugid maahan, Interpol maahan, yacni wax uu yahay oo maanta oo hadda shakhsi hadduu hata dambire uu yahay kaba soo qaad shakhsiga qabalahay maahan, shakhsigii maxkamad nin jooga ma ahan. waxa ku raacaya ama uu danka leeyahay waxa waaye inay shirkaddu ay ku fahantahay ku tiraahdo Daahirow naga khalay sida hadda ka hor waxaan maqlay in la siiyey $10,000 oo laga siiyey shirkadda Dahabshiil oo hadda ka hor daba dhigtay ninka iskale saas oo kale la siiyey shirkado shakhsiyaad oo dowladda Soomaaliya kamid ah oo waxa jirta oo saas oo kale ugu dhigay oo ka daba oo saas oo kale cambaar oo daba kacay oo dhaqaale oo ku siiyey. marka waxaa la yiri dawaco meeshii ay barur uga barato ay macluul ugu dhimataa. waxaan kala hadlaynaa macnaha shakhsiyadda shirkadaada aqoonin haddii aad taqaano shirkadaana baadna ma bixiso oo haye hanjabaadna waxba kuma bixiso ruufiyaanimo waxba kuma bixiso waa shacab Soomaaliyeed oo aruuray oo hantidooda isku geystay ma fahanti okay waan dad iimaan leh mana joogaan wax sida oo kale Ilaahay iimaanka uu ka qaaday oo jecel qof maanta qof bili aadina oo wuxuu ahayn lagu tilmaamo Ilaahay caradiisa way ogtahay waa ummadda way ogtahay dhibka iyo dhibaatada ay leedahay. waxaan leenahay waa maalin soo qaad waa bil Ramadaan waa bishii lagu talagalay Ilaahay inuu dambiyaasha dadka ay galaan Ilaahay uga dhaqo qofkii kasbada Daahir Cali Sow kasbo dadka Islaamiyeed oo been abuuraysid iyo ninkaas culimada oo beenta aad ka sheegid maalin kasta Ilaahay uga toobadkeen oo inta hadda goor tahay bisha Ramadaan toobada Ilaahay si gooni u aqbalaa waa sir hala gaarsiiyay Daahir Cali Sow hana ka toobadkeena waxa uu ku jiro oo inuu qof islaam waxay ahayn oo ku sheego bal iska dhaafo qofku wuxuu yahay hadda ka sheegaysay haddii uu qofka raalli ka ahayn si aad ka sheegto waxa uu yahay waaye bal wuxuu saaxiib iska dhaafay wuxuu isagu yahay hadda aad ka sheegto ayaa waxayba tahay macnaha uu isaga raalli ka ahayn dambi kugu taa adiga. marka waxaan dhihi karnaa adiga Interpol ma tiid booliiska Soomaaliya ma tiid nabad sugidda ma tiid military ma tiid dowladda Soomaaliya ka mid ma tiid dowladda Soomaaliya inta jafid dabar ku dhaganado asaas yeeshay isaar yeeshay masha Allah qaraxani iyada soo gudbiday iyo iyada asaas saaf gaatay mid ka cambaarayda waay. marka waxaan inii sheegaa hala gaarsiiyay Daahir Cali Sow. waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.